daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey kadib markii aan tibina saakay hadal ka soo yeeray madaxweynaha lafta gareen isla markaasina madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa soo taraya canaanta isla markaasina jawaabyo culus loo jeedinaya hase ahaatee hadalkii ka soo yeeray ninka lagu magacaabo lafta gareen ayaa iminka waxa isku bedelay khabiil hase ahaatee xildhibaano ka soo jeeda beesha habarged isla markaasina reer gaalkacyo reer mudug ah ayaa waxay u jawaabeen madaxweynahaas isla markaasina ku sheegay haddii aad meeshaas qabiil ka dhigtay dadkii lagu xasuuqa gaalkacyo iminkane dadka shabaabka ah ee reer baydhabo isla markaasina isqarxinaya ama raxaweynka ah haddii ay arrintaas dhacdabo xilkeeda adiga ayaa qaadanaya mas-uuliyaddeeda adiga ayaa qaadanayo hase ahaatee xildhibaan mahad salaad oo marnaba aan gambanin ayaa markaan usoo jawaabay isla markaasina si cad u sheegay baashana ka dhigay qabiil hase ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa jawaab ka bixiyey hadal uu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen si dadban ugu weeraray siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha habargidir ee mucaaradka ku ah dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina dadkii reer baydhabo ee lagu xasuuqay gaalkacyo isla markaasina ay ahaayeen dadku hayba hase ahaatee muusan ku dhawaaqin madaxweynaha ayaa dhahay oo keliya dadkaasi dadku hayba ayaa iminka mucaaradaya hase ahaatee mahad salaad oo gamban ayaa banaanka soo dhigay qabiilka lafta gareen oo ka hadlay baydhabo ayaa yidhi siyaasiyiinta mucaaradka iyo oo aan imaan baydhabo ayay been ka sheegaan waxaana ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay inay dowladda ku xumeeyaan waxaa ku jira dadkaas kuwa ka soo jeeda deegaano lagu dilay dad reer koonfur galbeed ah oo reer koonfur galbeed ah gaar ahaan gaalkacyo mana ahan oo yidhi kuwa xishoonaya hase ahaatee inay isdaba qabtaan xildhibaan mahad salaad ayaa qoraalka hadalkaasi jawaab uu ahaa soo dhigay bartiisa twitterka bartiisa facebooka kuna yidhi waxaa dhegaystay khudbadii xalay magaalada baydhabo uu ka jeediyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen uuna leeyahay reer galmudug ayaa xasuuq noo geystay isaga oo tusaale usoo qaatay dhacdadii gaalkacyo ka dhacday dhowr bilood ka hor hase ahaatee waxa uu intaasi ku daray madaxweyne lafta gareen mooryaaniinta gaalkacyo dadka ku laayay ee dhammaanteen aan ka wada dhiidhinay ee ehelnimo islaamnimo iyo soomaalinimo ahna aan uga fal celinay ayuu yidhi haddii maanta uu nagu eedeynayo una leeyahay qabiil ayay ahaayeen waa nasiib darro aad u weyn gefna ku ah dadka aniga aan ka dhashay islamarkaasina beesha habargidir ayuu ula jeedaa waxaan kuu sheegayaa ayuu yidhi madaxweynow haddii mooryaanka gaalkacyo dadka ku laayay qabiil ahaan aad noo xijinayso adiga midka al-shabaab ah ee maalin walba dadkeena ku xasuuqaya magaalada muqdisho isku qabiil ayaa tihiin ee mas-uuliyadda adiguna qaado ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad taas oo ula jeedo dhalinyarada inta badan isqarxisa ee ururka al-shabaab ayaa inta badan markii ay shabaab soo tabiyaan qabiilada ay kasoo jeedaan ayaa boqolkiiba 80 boqolkiiba 70 waxa ay yihiin dad reer baydhabo islamarkaasina beelweynta ayaa iminka waxa uu leeyahay dadka isqarxinaya ee shacabka reer muqdisho laaynaya haddaba mas-uuliyadooda adiga qaado bahasha aad ayuu u xumaatay iminka ayaa la leeyahay dad badan ayaa soo baxaya islamarkaasina hadalkii madaxweynaha naqdaniyo ugu dambeyntii madaxweyne lafta gareen waxaa ku leeyahay mooryaanka iyo al-shabaab dhiigga cabka ah wuxuu yidhi isku qaanad ayay ku jiraan yaan la qabiilaynin ama qolo waliba midka ku abtirsada xumaantiisa ha qaado ayuu yidhi hase ahaatee arrintaani ayaa si weyn dad badan ugu xumaaday islamarkaasina iminka waxaan arkayay xildhibaano reer koonfur galbeeda islamarkaasina naqdinaya xildhibaan mahad salaad islamarkaasina jawaab cad siinaya hase ahaatee dib damba ayaa kasoo tebin doonaa isqabqabsiga hadalkii kasoo yeeray madaxweyne lafta gareen fadlan nala joogo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ku hadlay howlaha dhismaha galmudug oo ay dowladda soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb isagoo ka digay in doorashadaasi qalalaaso keento oo ay ka dhacdo galmudug madaxweyne waare ayaa sheegay in waqti badan ay qaadatay maamul loo dhan yahay oo laga dhiso deegaanada galmudug hase yeeshee muhiimad tahay in la dhiso doorasho loo dhan yahay oo aan dhibaato ka dhalan karin oo yidhi la musuq maasuqin islamarkaasina si cadaalad dadka wax loogu qaybiyo maamulka nala deriska ah ee galmudug dhismihiisa foosha ah ayaan ku daahday waxa uu yidhi tusaale koonfur galbeed u qaata uu yidhi waxaa la leeyahay dowlad halkaasi iyaysan ka dhicin doorasho qalalaaso ka dhasho oo la isku fahmi waayo ayuu yidhi madaxweyne waare ugu dambeyntii madaxweyne waare waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in maamul goboleedka wada shaqaynta la leh koonfur galbeed iyo hirshabelle oo kale oo u noqdo maamul loo dhan yahay galmudug loona dhiso si uu u dareemo dowladnimada ayuu yidhi
hadalkan ayaa madaxweynaha hirshabelle waxaa ku sheegay munaasabadii loo dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo lagu qabtay baydhabo. hase ahaatee muhiimadda ugu weynaa waxa ay tahay inuu dowlad goboleedka diris la ah hirshabelle inay ka dhacdo doorasho xalaala islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya la shaqayso ayuu yidhi. haddii aan qodobkaasi uga wareegnay dhinaca kale waa isla galmuduge jadwalkii doorashada galmudug ayaa iminka lasoo shaaciyey taasi oo noqonaysa si qaab farsamayso dhici doonta. guddiga farsamada maamul u dhisida galmudug ayaa soo saaray jadwalka cusub oo ku saabsan doorashada maamulkaasi galmudug. waxaa la leeyahay warqad ka soo baxday shalay ayaa lagu yidhi guddiga farsamada iyo maamul u dhisida dowlad goboleedka galmudug oo ka duulaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday islamarkaani garwaaqsaday baahida loo qabo yegleelidda baarlamaan labaad ee galmudug iyo guud ahaanba hogaanka galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu soo saaray ama guddiga uu soo saaray jadwalka guud ee doorashada ee guddigaasi ayaa la yidhi howl shaqo xaqiijinta odayaasha dhaqanka iyo xalinta khilaafaadka 19 Diseembar ilaa 23 Diseembar ayaa la yiri inay soo xulaan. qodobka labaad soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada ee waxa la yiri maamulkaasi 24 Diseembar ilaa 30 Diseembar ayaa la yiri. qodobka saddexaad howlgelinta iyo dhaarinta golaha wakiilada maamulkaasi galmudug 31 Diseembar ayay dhacaysaa taasi. qodobka afraad doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada January 4 isla markaasina sanadka cusub ee 2020 ayay dhacaysaa. qodobka shanaad doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa 9 January 2020 ayay dhacaysaa. hase ahaatee intaasi ayaa loogu talagalay jadwalka cusub maadaama kii hore la bedelay islamarkaasina kan ay tahay midda rasmiga ah ee halkaasi ka socon doonto. hase ahaatee guddiga farsamada iyo maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug ayaa arrintaasi sii faahfaahisay. dhinaca kale beesha caalamka oo amar 11 qodob ah dul dhigtay doorashada Soomaaliya ee 2020 ee madaxweyne farmaajo uu doonayo. saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ku saabsan doorashada Soomaaliya ee 2020 iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in doorashadu noqoto mid wax ku ool ah oo ku dhacdo waqti loogu talagalay isla markaasina si xur ah u dhacdo. qoraalkan oo dad badan ay ku macneeyeen mid lagu amrayo dowladda Soomaaliya ayaa saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ku sheegeen in ay qasab tahay in la xaqiijiyo inaan wax muddo kordhin ah loo sameynin baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa yiri. xubnaha saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo bandhigeen qoraalkooda 11 qodob oo ku dalbadeen in laga helo hanaanka doorasho ee 2020 waxa ayna yiraahdeen si waafaqsan ballanqaadyadii ay sameeyeen dowladda federaalka iyo dhammaan saamileyda siyaasadda Soomaaliya waxay saaxiibada booriyaan in hanaanka doorasho mustaqbalka uu noqdo mid. qodobka koowaad dhowrista dastuurka ayay dhaheen. haddaba 11 qodob ayaan daawadayaal soo gudbinaynaa. 11 qodob ayaa waxaa ka mid ah qodobka koowaad dhowrista dastuurka in lagu amray dowladda federaalka Soomaaliya inay dastuurka hagaajiso. 2 xaqiijinta dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda oo dhammaan 2020 iyo horaanta 2020 iyada oo aan muddo kordhin loo sameynin baarlamaanka ama xukuumadda ayaa la yiri. 3 xaqiijinaya in dhammaan bulshooyinka Soomaalida ay helaan metelaad cadaalad ah taasi oo la leeyahay qabiil kasta ama beel kasta oo Soomaaliya degan waa inay cadaalad heshaa. 4 siinaya dadka Soomaaliyeed fursad ay wakiilada matalaya ugu doortaan hab qof iyo cod ah. 5 ku daryada kaalinta xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka taasi oo loola jeedo in xisbiyo badan ay jiraan isla markaasina doorashada lagu daro. 6 dhammaan waxa la yiri damaanad qaadaya in haweenka boqolkiiba 30 ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka taasi oo la leeyahay boqolkiiba 30 gawi ahaanba haweenka Soomaaliyeed inay ku lahaadaan baarlamaanka. 7 xaqiijinaya ka qaybgalka ugu ballaaran uguna macquulsan oo ay ku jiraan dadka gudaha dalka ku barakacay ayaa la yiri. taasi oo loola jeedo dadka gudaha ku barakacay waa inay ugu yaraanba xataa ka qayb galaan doorashooyinka. 8 haysta taageerada dhammaan saamileyda siyaasadda dalka. 9 doorasho loo qaban karo si hufan oo nabad ah oo soo jiida karta taageerada dhaqaale ee loo fidiyo qodobadan ayaa la yiri.
toban natiijada ka dhacda halkaasi noqotaa doorashada hogaamiye shaaciya haysta iyo mid kaleba. 11 ilaalinaya muddo xileedka guddiga madaxweynaha ee doorashooyinka qaranka. saaxiibada caalamka ayaa ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka inay ka hor dhammaadaan 2019 meel mariyaan sharciga doorashooyinka iyo kan xisbiyada ayaa layidhi. saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay dowladda Soomaaliya ka taageerto dowladda wanaag ah iyo taabagelinta dhammaan qodobada kor ku xusan ayaa layidhi. bayaankan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray AMISOM, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, IGAD, Italia, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka. hase ahaatee intaasi ayaa ku midowsan ama saaxiibo gaar la ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana la leeyahay taasi haddii aad fiirisidna qodob waxaa ku jiray oo ah in qof iyo cod halkaasi ay samaysa, taasi oo madaxweyne Farmaajo la leeyahay waxa uu doonayaa hal qof iyo hal cod inay dalka ka dhacdo, taasi oo dad badan ay diideen oo ah xilligeedii lama joogo, isla markaasina dowladda diyaar uma noqonin. waxaana macquul ah dad la soo kireeyay basas lagu soo qaaday in hal meel la keeno la dhaha kadibna codeeya oo la dhaho waxay mataleen shacabka Soomaaliyeed oo idil, taasi oo madaxweyne Farmaajo ku shubanaya ayaa la yidhi. hase ahaatee wixii wareer ka soo baxa oo mucaaradka ka soo jawaabaan ayaa la arki doonaa. mucaaradka ayaa markii ay arkaan taageero yar oo dowladda la siinayo inay ayagana macawisyaha soo furtaan. halkan ay daawanaysaa waa Calansida, fadlan nala joog.